Mar walba oo aan ka hadlayno sheekooyinka jacaylka iyo qisooyinka jacaylka, waxaan soo qaadanaa sheekooyin aan isleenahay markaas saaxiibada ku xidhan barta YouTube-ka Socdaal 24 wax badan ayay ka faa'iidi karaan. Sheekooyinkaas oo inta badan marka aan sameynayno ama marka idiin soo gudbinayo baaritaan dheer aan ku sameyno. Rayaan waxa ay ka mid ahayd gabdhaha ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Marka magaca jacaylka la soo hadal qaado, qofba si gooni ah ayuu u taabtaa. Qofaa magaca jacaylka markuu maqlo ilinta ayaa ka soo daadato, qofna marka uu maqlo magaca jacaylka farxad iyo reereen ayuu ku qaataa. Qofna waxa uu dhahaa yaan lay maqashiin magaca jacaylka, maxaa yeelay inta badan wuxuu iska ilaaliyaa nabaradii dhaawaca ee mar hore qalbigiisa soo gaaray in mar kale ay soo gaaraan. Rayaan sidaas ayay ahayd. Sidoo kale Rayaan waxay ahayd gabar qurux badan, jooggeedana oo nin walba oo arko soo jiidanayo. Rayaan iyo Cabdiraxmaan saaxiibtinimadooda waxay ka bilaabatay si walaaltinimo ah, waxayna dhiganayeen mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala Soomaaliya, ayagoo iga codsaday inaan qariyo magaca jaamacadda. Inta badan jacaylka marka laga hadlayo siyaabooyin kala duwan ayuu ku bilowdaa. Inkasta oo gabdhaha la sheego jacaylka xitaa haddii ay ku qaadaan inaysan kuu soo gudbi karin, waxayna inta badan qaadataa inay kuu soo gudbiyaan qaab qoraal ahaan ama qaab fariimeed ama si kale inay kuugu soo gudbiyaan. Wiilasha ayaa la sheegaa inta badan jacaylkooda si kaftana inay u soo gudbiyaan, ama qofka gabadha ay jecel yihiin ee si dhab ah u dhahaan waan ku jecelnahay, ama jacaylka si dhab ah ee Rayaan ama ugu soo gudbiyaan. Markaasoo kale Rayaan iyo Cabdiraxmaan jacaylkooda waxa uu ku bilowday si walaaltinimo ah ayuu ku bilowday, si kaftan ah. Mararka qaar Rayaan ayaa Cabdiraxmaan wici jirtay oo ku dhihi jirtay, Cabdiraxmaan hadda ayaan jaamacad u socdaa, hore ma isku sii raacaynaa, soo bax iyo waxyaabo kale. Rayaan inta badan baa u raaca jaamacadda, xitaa ayada ayaa dhiibi jirtay si Cabdiraxmaan ay u dareensiiso hadafka iyo ayatiinka ay ka leedahay. Dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin ragga iyo dumarka lacag ama waxyaabo kale haddii ay siiyaan in jacaylkaas uu noqonayo mid guulaysto ama mid guuldareysto. Inta badan guusha ayaa ah mid soo daahdo, mararka qaarna guusha si fudud ayay kugu dhaaftaa, guuldarrada ayaana saaxiib la noqotaa. Rayaan iyo Cabdiraxmaan sidaas siday u ahaayeen waxaa u dhammaaday semesterka koowaad ee jaamacadda. Qof walba guriga markuu joogo jacaylka keligiis ayuu ku yahay, mala soo gudbi karo uurku taalada. Sidaas ayuu kale ayay tahay, inkastoo labadoodaba mar walba ay isku soo diraan sawirada jacaylka, ereyada jacaylka, heesaha ereyada macaan ay ku jiraan, kuwaasoo la dhihi karo qofkii dhegaysto wax badan ayuu ka faa'iidayaa. Halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii koowaad qisadii xanuunka badneed Rayaan iyo Cabdiraxmaan ku dhacday. Waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-kan ku leeyahay Socdaal 24. Socodsiyaha iyo tabiyuhu waa anigoo ah Mahad Sheekh Abuukar, Mahad Socdaal. Inta qaybta labaad aan ku kulmi doono, sidaas iyo ammaano Allah.